kulan wacan wanaagsan qaarta wadana kala socota email walba joogtaan iyo walba aad noo maqlaysaan ku soo dhawaada xogii ugu dambeeyay ee caalamka qodobada wararkeena ugu doorona waxa kamida isad xoogan ayaa ka dhax qaraxday wadanka Itoobiya iyo Djibouti iyadoo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele ciidamadii ugu badnaa uu soo dhoobay xuduudda dalka Itoobiya uu dalka Djibouti la leeyahay hadaba xiisadaasi maxay ka bilaabatay warkeena ayaan si toos ah ugu faahfaahin doonaa waxaan gabriya gula sugan saaxiibkay wacane oo isha ku ay xaaladihii ugu dambeeyay ee caalamka wacane u soo dhow aad iyo aad ba mahadsantahay santaag sad ayaa ka aroosan baa layidhi oo u dhaxaysa dalka Itoobiya iyo weliba Djibouti bal xiisadan maxay ka bilaabatay aad iyo aad santaag xiisadani waxay ka bilaabatay kadib markii dabley hubaysan oo ka soo gudubtay xuduudda dowlad deegaanka Canfarta iyo Djibouti ay wadaagaan halkaasina ay galeen saldhig ciidamada militariga dalka Djibouti ay ku lahaayeen xuduudda isla markaana dableyda hubaysan ay dhaawaceen tiro kamid ah ciidamadii wadanka Djibouti halka ay dileen tiro gaadhaysa 7 xubnood oo ka tirsan ciidamadaasi waxay sidoo kale afduubteen 5 xubnood oo ka tirsan ciidamada militariga dalka Djibouti isla markaasi dowladda Djibouti waxay bilowday baadi goobka 5 xubnood ee afduubteen dableydan hubaysani waxa sidoo kale Ethiopia ay dalka Djibouti ay codsi u dirsatay dowladda Abiy Ahmed sifa ay uga jawaabto qulqulutooyinkan iyo dableydan hubaysan ee ka soo gudbaysa gudaha dowlad deegaanka Canfarta si kastaba arintaasi Ethiopia wax cudurdaara oo ay ka bixisay ma jirin xilligaasi maanta madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele waxa uu si degdeg ah iskugu yeeray baarlamaanka wadankiisa waxa isla markiiba heegan la geliyay ciidamada wadankaasi haatan waxa la soo warinayaa in xuduudda wadanka Ethiopia ay la wadaagtay Djibouti iyo waliba xuduudda Eritrea ay la wadaagaan inay geeyaan ciidamadii ugu badnaa kuwaasi oo haatan la sheegay inay ka bilaabeen dhaqdhaqaaq military waxaana la arkayay ciidamada u tiro badan oo halkaasi dhoolotus iyo waliba sidoo kale in ciidamada halkaasi la iskugu keenay oo ay u diyaarsan yihiin xaalad kasta oo halkaasi ay yacni wax dhibaato kasta halkaasi ka dhacdo in ciidamadani ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay ka hortagaan takale santaago waxaa jirtay tan iyo inta la doortay ama dib loo doortay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele waxaa soo baxaysay dabley hubaysan oo gudaha deegaanada dalka Djibouti ka soo jeedo kuwaasi oo ku tababaranayay gudaha deegaanka Canfarta iyo waliba dalka Eritrea dableydanina waxaa la sheegay in ay dagaal iyo waliba gulf colaadeed ku qaadi doonaan maamulka Ismaaciil Cumar Geele oo in ka badan 32 sano xukunka ku fadhiyay wagaag dhinaca kale mid kamida wasiiradii la soo shaqeeyay dowladii hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta laga celiyay garoonka Jomo Kenyatta ee dalka Kenya bal mas'uulkaasi waa kuma laga celiyay garoonka maxay tahay sababta loo celiyay wadan isagoo u soo duulay oo si nidaam ah ku soo duulay looga celiyay garoonka Santago waxaa soo baxaysay maalmihii ugu dambeysayba in xisbiga Damul Jadiid madaxdiisa ugu sareysa ay bilaabeen beegsiga iyo waliba qabashada xubnihii hore ee la soo shaqeeyay dowladii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana soo baxaysay in qaar kamid ah xataa saraakiishii hore loo magacaabay xilalka laga qaadayo halka kuwa kalena xabsiga loo taxaabayo si kastaba saaka Cabdiraxmaan Dheere oo hore u soo maray agaasime iyo waliba xubin sare oo kamid ah laamaha amniga ee dowladii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu ka soo duulay wadanka Ethiopia gaar ahaan magaalada Addis Ababa waxaana ku soo wajahnaa magaalada Nairobi gaar ahaan يعني markii uu ka soo degay garoonka Jomo Kenyatta ayaa gabi ahaanba diyaaradii uu ku imaaday dib loogu celiyay loomana ogolaanin ba gabi ahaanba inuu nasto oo magaalada uu hore u galo arintan ayaa waxaa la sheegay in maalmihii ugu dambeysayba magaalada Nairobi ay ku soo laalaabayeen xubno ka tirsan dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kuwaasi oo ka codsanayay dhamaanba saraakiisha sirdoonka wadankan Kenya in ay baangareeyaan isla markaana ay gabi ahaanba aysan u ogolaanin in xubnihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo galaangalka siyaasadeed ku lahaa inaysan imaan karin magaalada Nairobi waana arin ay isku ogyihiin dowladda Kenya iyo waliba sidoo kale tan Soomaaliya wagaag madaxweynaha ugu dambeyntii madaxweynaha dalka Soomaaliya safar ayuu dalka dibadiisa isagana ugu baxay waliba qarsoodiya oo laga qariyay saxaafadda Soomaaliyeed dhinaca kale ra'iisul wasaaraha hore ayaan iyadana u soo sheegnay in safar ugu maqan yahay dalka Ethiopia bal mas'uulkan madaxweynaha dalka Soomaaliya aan dhahnay safarkiisa qarsoodida iyo sababta looga qariyay warbaahinta iyo wadanka uu baxay waa kuma
in aad iyo aad madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya laba maalin ka hor ayay ahayd markii uu ka soo laabtay wadanka Uganda halkaasi oo kulamo degdega ay ku qaateen asaga iyo dhigiisa wadankaasi Uganda Yoweri Museveni waxaana halkaasi ka soo baxay qodobo xasaasi ah kuwaasi oo la xiriira la dagaalanka ururka argagixisada iyo waliba howlgaladan haatan ciidamada ay ka wadaan gudaha dalka Soomaaliya si kastaba heshiisyadaasi kadib madaxweynaha magaalada Muqdisho ayuu dib ugu soo laabtay waxaana xalay habeenimo uu safar qarsoodiya uu ku aaday wadanka isku taga Imaaraadka Carabta iyo waliba wadanka Sacuudi Carabiya halkaasi oo booqasho laba bari uu ku joogi doono arintan ayuuna uga galeeyahay in madaxweynuhu wadamadaasi uu ka dhaadhiciyo in gulufka colaadeed ee ururka al-shabaab lagu qaaday gabiyaanba ay taageeraan maadaama lagu xamanayo wadamadaasi inay yihiin wadamada inta badan qulqulooyinka amni darra ee ka socda gudaha dalka Soomaaliya inay ayagu horseed u yihiin oo ururadan argagixisada iyo waliba siyaasiyiintan damaca iyo waliba fikirka qalafsan qaba in ay ayagu malaayiin lacag halkaasi ay ku bixiyaan tan kale Santiago waxa soo baxaysa in ayadana madaxweynaha tan iyo intii uu kala diray guddigii joogtadaha dhanka maaliyadda iyo waliba sidoo kale guddigii la dagaalanka musuqmaasuqa in khasnadii dawladda gabiyahaanba la qaybsanayo oo safarro bilaasha iyo waliba sidoo kale safarro micna darra ah ay madaxdu ku aadayso wadanka dibadiisa halkaasi oo la sheegayo in gabiyahaanba khasnadii dawladda iyo waliba dhanka mushaaraadka ciidamada gabiyahaanba haatan laga waayay malaayiin lacaga kuwaasi oo la rabay in lagu la dagaalamo ururka argagixisada isla markaana ciidamada dhiirigelin kala duwan lagu siiyo si kastaba xaaladan qalafsan ee haatan madaxdu ay ku dhaqaaqday iyo waliba safaradan micna darrada waa kuwo dib u dhigi doono howlgalada ka dhanka ururka argagixisada iyo waliba sidoo kale in wadanka horu socodkiisa iyo kaabayaasha dhaqaalaha gabiyahaanba haatan iyo waliba sidoo kale hanaankii deen cafinta in ay dhaawac weyn ay ku keeni doonto ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xamza Cabdi Barre oo maanta gaaray magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya iyadoo halkaasi wafdi ay heerkiisu aad u hooseeyaan ay ku soo dhaweeyeen iyadoo la sheegayo in bahdil xoogan loogu geystay ra'iisul wasaaraha halkaasi waxa dhinaca kale khatar amni darro iyadana uu kula kulmay magaalada Addis Ababa iyadoo guud ahaanba taliyihii guud ee ciidamada militariga dalka Itoobiya qaybta Addis Ababa caawa lagu toogtay halkaasi waxaana ka taagan magaalada Addis Ababa xaalad amni darro iyo kala yaac iyo sidoo kale carar mas'uuliyiintii halkaasi iskugu imaatay ee midowga Afrika isla markaana ka qayb galaysay shirka amniga Afrika looga hadlayo ee maalmaha soo socdo inuu ka furmo magaalada Addis Ababa lagu waday hadalhayn weyn oo ka dhalatay safar qarsoodi ah oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo uga baxay dalka dibadiisa iyo lacag tiro badan oo laga waayay khasnada dawladda faahfaahin dheeraad ah ayaan iyadana idinka haynaa mid ka mid ah wasiiradii hore ee la soo shaqeeyay dawladii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta laga celiyay garoonka magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyo ujeedka mas'uulkaasi loogu celiyay diyaaradii iyo wadankii uu ka soo duulay ayaan sidoo kale idin soo gudbin doonaa gabiyahaanba warkeena ku eegi doonaa safarka ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale xaalad amni darro oo maanta uu kula kulmay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya iyo bahdilkii xumaa ee lagu sameeyay magaalada Addis Ababa markii uu gaaray ayaan sidoo kale warkeena aan ku eegi doonaa waxaan studio gula sugan saaxiibkay wacane oo isha ku ay xaaladihii ugu dambeeyay ee caalamka wacane u soo aad iyo aad ba maasantahay Santaag ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya mudane Xamza Cabdi Barre wuxuu u safray dalka Itoobiya wuxuuna ka degay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya halkaasi wafdi ayaa ku soo dhaweeyay waxaana ka dhalatay hadalhayn weyn isla markaana lagu tilmaamay qaabka loo soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha in aysan ahayn hab maamus oo labada dal iyo mas'uuliyiinta habkii ay isku soo dhaweyn lahaayeen aysan ahayn oo hab hooseeyo in lagu soo dhaweeyay dhinaca kale safar ayuu madaxweynaha dalka Soomaaliya naftigiisa dalka dibadiisa ugu maqan yahay bal safaradan mas'uuliyiinta sarsare ay wadanka uga ambabaxeen maxay ku saabsan tahay ana ku beedo waliba noogu bilaabaya safarka ra'iisul wasaaraha ee magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Itoobiya aad iyo aad ba maasantahay Santiago safarkani oo ah safar la sheegayay ama soo baxayba isbuucyadii ugu dambeeyayba in ra'iisul wasaaraha uu tagi doono dalka Itoobiya iyo waliba Kenya ayaa safarkiisii ugu horeeyay ra'iisul wasaaraha waxa uu ka degay magaalada Addis Ababa halkaasi oo ay ku soo dhaweeyeen mas'uuliyiin ay ka mid yihiin Aadan Faarax oo ah gudoomiye ku-xigeenka xisbiga BB iyo waliba madaxweynaha dowladdeegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar halkaasina waxa ay ugu sii qaadeen ama ay geeyeen xarunta uu ka degan yahay haatan magaalada Addis Ababa halkaasi oo uu ku soo dhaweeyay markii meeshaasi uu tagay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Ethiopia ahna wasiirka arrimaha dibadda hab maamus ahaan qaabka loo soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha ma ahayd
qaab u qalanta in ay soo dhoweeyaan mas-uuliyiintaasi aanu sheegnay ka soomaali ahaan haddii la dhaho waa niman soomaaliyeed oo ilmaadeertiisa ayaa soo dhoweeyey markii laga eego dhanka soomaalinimada laakiin maamus ahaan markii la fiiriyo ra-iisul wasaaraha nidaamkii loo soo dhoweeyey ma ahayn nidaam uu u qalmay islamarkaana ma ahayn nidaam looga bartay Ethiopia horey waxaan ogeyn xilligii dowladii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo ka degay magaalada Addis Ababa in uu soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed waxaa sidoo kaleeto ayadana ra-iisul wasaareyaashii hore soo dhoweyn jiray ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ama wasiirka arrimaha dibadda haddii labada xilba uusan isku haynin qofkaasi ayaa soo dhoweyn jira hab maamuus ahaan u soo dhaadhicin jiray xarunta markaasi laga rabo in laga dejiyo magaalada Addis Ababa si kastaba ra-iisul wasaarihii dalka ayuu joogay Ethiopia sidoo kale waxaa halkaasi joogay ra-iisul wasaare ku-xigeenkii waxaa joogay sidoo kale madaxweyne ku-xigeenkii dalka Ethiopia guud ahaan mas-uuliyiintaasi ayagoo joogaan weliba wasiirka maaliyadda ee dalka Ethiopia oo ah nin Soomaali ah laftirkiisa waa uu joogay oo ma uusan maqnayn guud ahaan marka la fiiriyo hab maamuuskii maanta lagu soo dhoweeyey ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ma ahayn mid uu qalmay Ethiopiana su-aashaasi si weyn ayay haatan warbaahinta caalamka ay u wadaa wahagaag markii aan ka imaano sida loo soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha sidaad ogtahay ba dalka Ethiopia dagaalo xoogan ayaa ka socday caawana waxaaba magaalada Addis Ababa dhexdeeda lagu toogtay taliyihii guud ee qaybta militariga ee magaalada Addis Ababa haystay bal xaaladda mas'uuliyiinta iyo waliba ra-iisul wasaaruhu sidee noqonaysaa mar hadiiba taliyihii guud iyo taliyaashii ugu sarreeyayba magaalada bartankeeda lagu tooganayo aad iyo aad Santiago xaaladda guud ee dalka Ethiopia waxay ahayd mid aad u qasan iyadoo ay jiraan fallaagooyinka TPLF iyo waliba oola inay ka wadaan qulqulooyin amni darro gudaha magaalada Addis Ababa iyo guud ahaan dalka Ethiopia ayaa caawa waxaa la toogtay mid kamid ah saraakiisha ugu sarreysa ciidamada dalka Ethiopia kaasi oo lagu toogtay bartamaha magaalada Addis Ababa waxaa magaalada Addis Ababa ay marti gelinaysaa shir ay midowga Afrika ay iskugu imaanayaan kaasi oo laga hadlayo amniga guud ee dalalka Afrika iyo waliba sidoo kale ee kan caalamka si kastaba shirkan midowga Afrika ay ku yeelanayaan oo waliba ay ka soo qayb galayaan korjoogto caalami ah kuwaasi oo ka imaanaya dhinaca midowga Yurub sidoo kale wadanka Mareykanka iyo guud ahaan wadamada inta badan daneeya siyaasadda ama galaangalka siyaasadeed ee dalalka Afrika ayaa haatan waxaa magaalada Addis Ababa ka taagan xaalad aad u adag kadib markii la dilay taliyihii guud ee qaybta militariga ee magaalada Addis Ababa halkaasina waxa sheegtay dilkaasi ururka oola oo ayagu sheegay in ay dilkaasi si toosa uga dambeeyeen si kastaba qulqulooyinkan amni darre ka taagan magaalada Addis Ababa iyo guud ahaan dalka Ethiopia waa midda haatan keentay in gabi ahaanba ay midowga Afrika garwaaqsadeen in Ethiopia tahay laga maarmaan maadaama ay ku taala xaruntii guud ee midowga Afrika ay shirarkoodu ay ka dhacayeen isla markaana Ethiopia mar walba ay tahay midda marti gelisa shirarka midowga Afrika iyo waliba urur goboleedka IGAD waxaa sidoo kale haatan midowga Afrika ay wadaan sidii gabi ahaanba ay ku xalin lahaayeen khilaafaadka iyo waliba sidoo kale dagaalada xoogan ee ka aloosan gudaha dalka Ethiopia siiba wada hadaladii la filayay inay ka dhacaan gudaha wadanka Koonfur Afrika oo gabi ahaanba labada dhinac ay ayagu ay ka cudur daarteen in ay halkaasi ka qayb galaan Ethiopiana ay kadib bilowday duqeymo joogtay waliba guluf culaadeed oo ay ku qaadayso xooga TPLF waxaana haatan la soo warinayaa in agagaarka magaalada Makale ee xarunta duldigaanka Tigreega haatan ay ka socdaan dagaalo xoogan kuwaasi oo ay qaadayaan ciidamada militariga dalka Ethiopia ku Eritrea iyo waliba kuwa duldigaanka Ahmaarada si kastaba Santiago xaaladan haatan ay ku sugan tahay magaalada Addis Ababa waa mid gabi ahaanba baajin doonto shirarkii iyo waliba booqashadii ra-iisul wasaaraha halkaasi uu ku tagay iyo sidoo kale shirarkii la filayay inay berito wixii ka dambeeya ay bilowdaan shirkaasi oo ah shirka midowga Afrika uga hadlayaan amniga dalalka ku midaysan urgoboleedka wagaag dhinaca kale mid ka mid ah wasiiradii la soo shaqeeyay dowladii hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta laga celiyay garoonka Jomo Kenyatta ee dalka Kenya bal mas'uulkaasi waa kuma laga celiyay garoonka maxay tahay sababta loo celiyay wadan isagoo u soo duulay oo si nidaam ah ku soo duulay looga celiyay garoonka Santiago waxaa soo baxaysay maalmihii ugu dambeysayba in xisbiga Damul Jadiid madaxdiisa ugu sarreysa ay bilaabeen beegsiga iyo waliba qabashada xubnihii hore ee la soo shaqeeyay dowladii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana soo baxaysay in qaar ka mid ah xataa saraakiishii hore loo magacaabay xilalka laga qaadayo halka kuwa kalena xabsiga loo taxaabayo si kastaba saaka Cabdiraxmaan Dheere oo hore u soo maray agaasime iyo waliba xubin sare oo ka mid ah laamaha amniga ee dowladii hore Maxamed Cabdullaahi
farmaajo inuu kasoo duulay wadanka Ethiopia gaar ahaan magaalada Addis Ababa waxaana kusoo wajahnaa magaalada Nairobi gaar ahaan يعني markii uu kasoo degay garoonka Jomo Kenyatta ayaa gabi ahaanba diyaaradii uu ku imaaday dib loogu celiyay loomana ogolaanin ba gabi ahaanba inuu nasto oo magaalada uu hore u galo arintan ayaa waxaa la sheegay in maalmihii ugu dambeysayba magaalada Nairobi ay kusoo laalaabayeen xubno ka tirsan dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kuwaasi oo ka codsanaya dhamaanba saraakiisha sirdoonka waddankan Kenya in ay baangareeyaan isla markaana ay gabi ahaanba aysan u ogolaanin in xubnihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo galaangalka siyaasadeed ku lahaa inaysan imaan karin magaalada Nairobi waana arrin ay isku ogyihiin dowladda Kenya iyo waliba sidoo kale tan Soomaaliya wagaag madaxweyne ugu dambeyntii madaxweynaha dalka Soomaaliya safar ayuu dalka dibadiisa isagana ugu baxay waliba qarsoodiya oo laga qariyay saxaafadda Soomaaliyeed dhinaca kale ra'iisul wasaaraha hore ayaan iyadana u soo sheegnay in safar ugu maqan yahay dalka Ethiopia bal mas'uulkan madaxweynaha dalka Soomaaliya andahne safarkiisa qarsoodida iyo sababta looga qariyay warbaahinta iyo wadanka uu baxay waa kuma aad iyo aad madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya laba maalin ka hor ayay ahayd markii uu ka soo laabtay wadanka Uganda halkaasi oo kulamo degdega ay ku qaateen asaga iyo dhigiisa wadankaasi Uganda Yoweri Museveni waxaana halkaasi ka soo baxay qodobo xasaasi ah kuwaasi oo la xiriira la dagaalanka ururka argagixisada waliba howlgaladan haatan ciidamada ay ka wadaan gudaha dalka Soomaaliya si kastaba heshiisyadaasi kadib madaxweynaha magaalada Muqdisho ayuu dib ugu soo laabtay waxaana xalay habeenimo uu safar qarsoodiya uu ku aaday wadanka isku taga Imaaraadka Carabta iyo waliba wadanka Sacuudi Carabiya halkaasi oo booqasho laba bari uu ku joogi doono arintan ayuuna uga galeeyahay in madaxweynuhu wadamadaasi uu ka dhaadhiciyo in gulufka colaadeed ee ururka al-shabaab lagu qaaday gabi ahaanba ay taageeraan maadaama lagu xamanayo wadamadaasi inay yihiin wadamada inta badan qulqulooyinka amni darra ee ka socda gudaha dalka Soomaaliya inay ayagu horseed u yihiin oo ururadan argagixisada iyo waliba siyaasiyiintan damaca iyo waliba fikirka qalafsan qaba in ay ayagu malaayiin lacaga halkaasi ay ku bixiyaan tan kale Santiago waxaa soo baxaysa in ayadana madaxweynaha tan iyo intii uu kala diray guddigii joogtadaha dhanka maaliyadda iyo waliba sidoo kale guddigii la dagaalanka musuqmaasuqa in khasnadii dowladda gabi ahaanba la qaybsanayo oo safarro bilaasha iyo waliba sidoo kale safarro micna darra ah ay madaxdu ku aadayso wadanka dibadiisa halkaasi oo la sheegayo in gabi ahaanba khasnadii dowladda iyo waliba dhanka mushaaraadka ciidamada gabi ahaanba haatan laga waayay malaayiin lacaga kuwaasi oo la rabay in lagu la dagaalamo ururka argagixisada isla markaana ciidamada dhiirigelin kala duwan lagu siiyo si kastaba xaaladan qalafsan ee haatan madaxdu ay ku dhaqaaqday iyo waliba safaradan micna darrada waa kuwo dib u dhigi doono howlgalada ka dhanka ururka argagixisada iyo waliba sidoo kale in wadanka horusocodkiisa iyo kaabayaasha dhaqaalaha gabi ahaanba haatan iyo waliba sidoo kale hanaankii deyn cafinta in ay dhaawac weyn ay ku keeni doonto aad iyo aad baad mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa saaxiibka wacan oo inala socodsiinaya xaaladihii ugu dambeeyey ee caalamka daawadayaal idinkana waad mahadsantihiin wararkeena xiga intaan ka gaadhaynana waxaan idinka tegaynaa amaana Allah